maamulka يا ولد قاعد maamulka saddexda boqol sharafisa shaqadan ayaa la doortay aragtidaada ku aad maamulka soo saaray dawladda Soomaaliya way ka hadashay maamulkaas waxayna ka mid tahay waxyaabaha dawladdu ay ku faanayso in maamuladii ay dhismayaan oo tartiib ay u socdaan marka arinta koonfur galbeed runtii anaga waan ka soo saaray statement yani waa talaabo hore loo qaado oo dhinacii saxda ah loo dhaqaajiyay laakiin waxay u baahan tahay wali dhamaystir iyo qurxin haddii dadka maqan jiraan lagu soo daro haddii nidaam ka dhiman uu jiro loo dhamaystiro iyo mar walba dawladda federaalka inay hoggaanka dhamaystirkaasi dawladda federaalka ay leedahay dawladda federaalka ay dhamaystiri doonto waxaan rabnaa inaan marka koobaad horta dadka koonfur galbeed degan oo hambalyeeyno marka labaadna inaan u sheegno wax badanaa naga dhiman waxa naga dhiman aan u diyaargarowno inaan wada dhamaystirno ayadoo dawladda federaalka ee Soomaaliya ay mar walba hoggaanka dhamaystirkaasi ay ayada leedahay waxaan in khilaafka madaxda Soomaalida dhexdeeda ka jira uu hareeyay shirkan madaxda caalamka ee ka qaybgalaysa shirka sida ay sheegayeen inay cadaadis ku saarayeen xal siyaasadeed inay qabtaan halkaas siyaasadeed ee keenaysa waa ma santahay koonta horta waxaan ka hadlaynaa waa xal siyaasadeed xal military kuma jiro Soomaaliya way ka soo gudubtay markii qoranka tan isku qaatay isxabadaynta waxa laga hadlayaa mar walba waa siyaasadana waa lagu kala aragti duwanaadaa sida baarlamaanada ama dawladaha adduunka dhanba ka jirta marka arrintu way socotaa Soomaalida hay'adaheeda baarlamaankeeda xukuumadeeda wali yani hawsha gacanta ku hayaan hawshaana Soomaaliya iskale Soomaalida ay u taalaan inay xalisato dadka caalamka way kaalmeyn karaan ra'yi way noo sheegi karaan waxyaabo ay dareemayaan ama rabaan waa noo sheegi karaan laakiin ultimately waa xalka laga sugi waa Soomaali gaar ahaan baarlamaanka Soomaaliya xukuumadda Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliyeed waxa laga sugay kalsooni buuxdaan ku qabaa in ay muxuu ahayd taariikhdeena dhaweyd hadii dib loo eego marka waxaanu kala yimaadaan dada dhiig ka daadan jiray dada muxuu ahay la daqareyn jiray maanta ma ayan marka rajaxuma hab yaraatay ma jirto waxaana dhawaan insha Allah dadka Soomaaliya dawladda Soomaaliya way ka gudbeen dimuqraadiyada hadii lagu kala bixi waayo dimuqraadiyada hadii lagu kala bixi waayo baarlamaanka gudihiisa maxaa kale lagu kala baxayaa marka in lagu kala baxo waayo marna waxa kale oo naloo riixay xaggooda uma socono marna inaan colaad iyo cunfi iyo dagaal iyo xabada in la isku qaato xaggooda uma socono Soomaaliya way ka timiday wada hadal iyo dimuqraadiyada isqancina lagu kala baxaya iyo shuruucda dalku مدن مدحنا المرحبا محمد أمين وحكى على العبد هذه هرمودة دنمارك وحكوا يدينها وضع هذا الذي Soomaaliya dawladda federaalka Soomaaliya iyo Somaliland muddo taagnaayeen Somaliland waxa ay tiri dawladda federaalka way ka arinta way ka gaabinaysaa halkee marayaan goorma fadhigu bilaabay wada hadallada ma taagnayn way socdeen laakiin waa taqaana wada hadal markii la galay waxa laga hadlayaana waa mustaqbalka nation qaran dhan mustaqbalkiisa waxa laga hadlayo hawl ku carar oo muxuu ahay ma ahan wada hadalladu ma ay istaageen way socdaan level muuqaal hadaan ku socon level muuqaal ay ku socdaan anagu waan ku rajo badanahay wali wada hadalladana meel horumar la ay soo gaareen lana hadda structures wada hadalkii wixii dib u qaaboobay xogeyn joogto ah ayaa la sameeyay oo wada hadalka xogeyn ah oo saldhigeedu uu yahay maxaan ku Istanbul marka wada hadalladu way socdaan waan tartiibinaynaa orod degdegsiin ugu jirto waana meel dhalayaan ilaahay idinka sabiyaad mudan madaxweyne magacayga waa Saaran Maxamuud Cali TV-ga iyo raadiyaha qaranka Soomaaliya Denmark waxaan rabaa inaan ku weydiiyo su'aal ah maadaama dadka Soomaaliyeed oo fara badan ay ku nool yihiin waddanka Denmark qaarkoodna aysan weli sharciyada helin oo ay ku dhibaataysan yihiin kaamamka mar dhaweed warar soo saaray ayaa waxaa jirta in la yiri waxa lagu celinayaa oo kaamam loogu sameeyo wadamada Afrikaanka welina dhibaatooyinku way socdaan dadku way soo wada galayaan arrintaas maxaad ka leedahay arrintaas aniga isaan ma hayo in soo gaarin mana maqlin dawladda Denmark dabcan shuruucda dalkeeda ayaa u fasaxan dad badan oo Soomaali ah oo dalkan ugu soo dhaweeyay oo muwaadiniin noqday ama process ku jira way jiraan waxayna mudan tahay in maxaan looga mahadceliyo dalka hadday jiraan wax qawaaniinteeda aan applicable ku ahayn sida qawaaniinteeda ay qabaan ayaa xalinay laakiin annaguna ma soo gaarin dad Soomaaliyeed oo xaabinayo oo meel kale lagu xireenayaa la leeyahay ma soo gaarin wada hadallada jiro dadka qaar ku Soomaaliya sharciga waayay sidee Soomaaliya ugu noqon karaan wada hadallada way jiraan waad ogtihiin annaga hal xilad oo jirta waxay tahay dadka afka Soomaaliga ku hadlayo waxay ku kala noolyihiin afar dal ay Soomaaliya mid ka tahay markii la isdhiibiyana waad garanaysaa qof kasta magaca Soomaalida isku dhiibayo isku dayay marka waxaan u baahanahay qofka Soomaaliga ugu celinaya inaan hubino muwaadin Soomaaliyeed inuu yahay
haddii muwaadin Soomaaliyeed inuu yahay dalkaas dalkiisa ah dal kale oo qabo ma laha marka dabcan muxuu ahay xaq u leeyahay inuu kusoo noqdo annaguna waajib inuu tahay inaan kusoo dhaweyno laakiin waxaan rabnaa inaan hubino qofkaas inuu muwaadin Soomaaliya ka yimid markiisa hore inuu yahay inta kale oo sharci u saamaxana waa xiraan sharciga inta kale oo helayay جعل مدحوين مقعي وفصل كرتيه وحن قال لما مقع الصحافة وحن جعلنا إنها سؤال مادام الصوماليات يتعلم سياسة دائما رسمات آدسون تنسل مسلمين كنت جعل مدحوين أبغاكم أتسمع فيني وحن ربا أردت سياسة صوماليا لقاها بنيا أردت سياسة لقاها بنيا وحين جبت الليفل أو ولي institutions كان قبائل سايستباد بقشة شكل سكوايست قبل يدور قبلات سايستباد بقشة institutions كان هدي أنا exercise جريدين سياسة قربي بسلانيا هلو داي institutions كسياسة إلي مثلا والله دورتي أيها دورني وكأمني كعنتي كوهيا أديتها مدحتوي أديتها حكومة أديتها برلمان لكن هدي أنا مرة البو واحد عام عن كسر جدنا نعم بنان كان حوالي هذه نايو institutions كوا سيدا institutions كلكم ما بسلانيا ما نقان جاريا سيو قان جارا وين مشاكل ده حاليا عن وحكي الضغاطر عن موجود عن سينا وحقتر أدرك كبيرة قطر سياسيين قطر أمني قطر هل قطر هل عدوان قبنا والشباب وأنا قلنا دجال بس ما أنت اللي جوه صعبان وما تنتين دليل ما تنتين